waxaa lagu jebiyey isku dayadii buuraha galgala waxay ku guuldaraysteen inay magaalooyinka ay wax ka qabtaan waxay yeesheen wajiyo kala duwan oo mararka qaarkood dhalinyaro la marin habaabinayo fal dambiyada sameeyay la dhahay iyadoo oo la kicinayo xamaasado aan markaa muuqan waxaan aad uga xumahay falalkii ka dhacay magaalada Garowe habeen dhaweyd oo saldhig lagu weeraray kuwa ka dhacay Carmo dhalinyaradaas waxaan hagnay xog ay dad ka shaqeynayaan siyaasado dana kale si ay sumcadda iyo sharafta Puntland ay u dilaan waxaad ogaataan in wax walba oo jira la og yahay waxaan rajaynayaa dhalinyarada reer Puntland inay dareemaan dagaalka ku socda inuusan ahayn waxa loo akhrinayo sida loo marin habaabin jiray kuwa al-shabaabka ay loogu sheekay inay janno gelayaan ayaa mararka qaarkoodna dhalinyaro qabaa'il ah lagu kicinayaa falal ay dawladdu ay rabto inay wax ku saxdo waxaan aad ugu rajo weynahay in arrimahaas laga waantoobo waxaan ugu baaqayaa ismada cuqaasha ganacsatada culumada waxgaradka kale aqoon-yahanka siyaasiyiinta in ay u soo jeestaan ilaalinta Puntland nabadeeda iyo deganaanshaheeda cid kasta oo shuruucda iyo qawaaniinta Puntland u degan rabta inay jabiso abuurto khalkhal siyaasadeed abuurto mid amni abuurto mid dhaqan xumo ah ogaada dadka reer Puntland iyo maamulkooda ma aqbali doonaan waxaan runtii fariimahaygan ay ku socdaan bulshada reer Puntland inay wacigooda kor u qaadaan waxaan aad runtii uga xunnahay falalka dhacay oo la rabo sumcadda in lagu dilo intii dhimatay Allah u naxariisto laakiin Puntland dhiman mayso dadku waa dhimanaya intii Ilaahay uu malagooda galaa dhimanaysa Puntland waxaan rajaynayaa inaysan dhiman hore u soconayso mana ay dib noqon doonto haddii Ilaahay waxaan insha Allah fariinteeda maanta ku soo koobayaa maadaama ay tacsi tahay iyo baaq nabadgelyo arrimo badan oo ishuwan oo siyaasadeed oo lagu wiiqaayo dawladnimada iyo horumarka ay Puntland gaartay maalmaha soo socda ayaan ka hadli doonaa haddii Ilaahay dalkan marxalad cusub uu galay oo la rabo in la baabi'iyo nidaamkii federalismka iyo dawlad dhiska la rabo in la wiiqo kala dambeynta la rabo in la yiraahdo qof walba sharciga gacantaad ku qaato degmo walba iyo magaalo walba wax loo akhriyo waxa laga helayo waa wax shaydaan falkiyay wax wanaag oo ku jira ma ii muuqato hadaf siyaasadeed oo laga dhaxli karo ima muuqdaan dawladnimadu iyo siyaasaddu waa inaad bulshadaada u shaqaysid ma aha in aad caado qaatan noqotid oo dana yaroon macno lahayn aad waqtiga ku dhumisid dawladnimadu waxa weeye inaad dadkaaga sharaftiisa ka shaqaysid horumarkiisa ka shaqaysid waa shaqo lagu igmaday oo dadkaaga khaadim u tahay fahamka khaldan ee dawladnimada ee baayadan dama soo badanaya waxay u baahan tahay dadka reer Puntland lagu yaqaan dawladnimo iyo kala dambeyn in ay dib u fiiriyaan waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada oo ah cudud ugu balaaran ee bulshada ay leedahay in ay wacigooda kor u qaadaan in horumarkooda dadka diidan ay meel uga soo wada jeestaan inay wacyiga jira oo dadka abuuraya fidnada iyo qalaanqalka iyo amni darrada oo dhinac walba ay ka hor yimaadaan waxaan ugu baaqayaa siday ugu gurmadeen markay fatahaaduhu dhacaan markay abaaruhu dhacaan inay ugu gurmadaan amniga inay gacan ku siiyaan inay ciidamada garab istaagaan sida lagu yaqaanay haweenka reer Puntland dhalinyarada iyo odayaasha reer Puntland ciidamadu waxay diyaar u yihiin har iyo habeen u taagan yihiin inay u dhintaan iyo kuwa diidan kala dambeynta iyo dawladnimada waxaan rajaynayaa dawladda Puntland warkeedu inuu aad u cad yahay wuxuu ka muuqdaa shaqooyinkeeda ku aadan dhinaca amniga oo cid walba aragta waxaan runtii aad uga xumahay international community ee marar badan hafra inay amniga Soomaaliya ka shaqeeyaan waxaan u sheegayaa inay Puntland wax amnigeeda aysan ka shaqeynin inay ogoleen ciidankeeda inay dhisaan inay horumarkeeda xagga amniga inay ka nagala shaqeeyaan inaysan diyaar u ahayn wax badan baan la hadalnay wax badan baan ka codsanay waxa muuqata inaan diyaar loo ahayn cid kasta oo caqabadaas gacan ka geysanaysa aanu aad uma garanayo isbedelka Soomaaliya la rabo waa isbedel aad u qalliban oo aan wada sax ku socon dawladnimo midaysan oo wada socota oo federaal qaanuun ku dhisan waa mid anagu aan doonayno laakiin dawladnimada aan rabno waa mid hoos ka soo dhis ah oo kor loo dhisaayo oo siyaasiyan iyo wada jir markii loo sameeyo hay-adaha amnigu ay noqdaan kuwo mid ah
markaas ayaa waxaa la oran karaa adduunku meel quru wax ka taageeri kara. laakiin xaaladda hadda lagu jiro waxaa noo muuqanaysa in la burburinayo nidaamyadii jiray oo runtii caqabad badan lagu yahay. cid kasta ha ka dambayso, cid kasta iyagoo ha uga dambeeyaan falsafadahaas iyo siyaasadahaas, cid walba ha huriso. laakiin waxaan u sheegayaa puntland dadkeedu si hore isugu tashadeen inaan mar labaad isku tashanno amnigeena iyo nabadgelyadeena iyo xasiloonideena ka shaqeyno.